الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا قلت waxaan ku dul istaagi doonaa dowladda Soomaaliya ee ka arrimaysa gobolka Banaadir ayaa soo saaray bayaan ah inay xariga u jartay dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale inay kala laabatay heshiisyadii ay ku joogeen dekada Berbera, dekada Boosaaso iyo dekada Kismaayo. Su'aasha isweydiinta mudan waxa weey saameyn ma ku leedahay dowladda ka arrimaysa gobolka Banaadir inay Imaaraad ka saarto Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo. Waa dul istaagi doonaa qodobkaas. sidoo kale waxa dul istaagi doonaa Xasan Sheekh Maxamed waa Xasan Wabiir madaxweynaha gobolka Banaadir ayaa yiri waxaan tagayaa magaalada Laascaanood ee SSC Khaatumo iyo Somaliland oo u diyaar garowday inay dagaal ku qaado Laascaanood ayadana waa dul istaagi doonaa waana la iskaleyn doonaa aan ku hormaro waayahay Xasan Sheekh Maxamed ka xukuumada gobolka Banaadir ayaa soo saaray bayaan ah inay kala laabteen xiriirka iyo heshiisyadii hore loo galeen dowladda Imaaraadka Carabta waan ognahay inuu gobolka Banaadir madaxweynaha xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud miisaaniyadiisa billahi bishii uu ku bixin jiray 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa miisaaniyada Soomaaliya ee billaha ciidanka qalabka sida ciidanka gobolka Banaadir ka howlgala iyo nawaaxigiis lagu biiro ama mushaarka lagu siiyo ayay waxay ku bixin jirtay dowladda Imaaraadku 12 milyan waa inta miisaaniyada ku jirta inta maaha suuqa madow lagu kala cuno laakiin inta ku jirta miisaaniyada dowladda ayaa 12 milyan ahayd Xasan wuxuu yiri waxaan xiriirka u jaray Imaaraadka waxaan dhinaca saaray Sacuudiga iyo Imaaraad oo isaya ayuu Sacuudiga raacay waya su'aasha isweydiinta badan baa waxay tahay Xasan sida ay bayaan ku saareen oo ay dhaheen Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo ayaanu heshiis kala laabanay ma ka saari karaa Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo su'aal isweydiin mudan madaxweynihii ka horreeyay Xasan Wabiir Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahaana nin arrimaha dibadda dadka aan la isgareeyahay inuu ku fiicnaa sababtuna ay ahayd kaliya inuusan baahiyeysnayn dowladaha shisheeyana uusan ka qaadan jirin ee diyaar ku rooyahay lacag ka qaadan jirin caruurta iyo naagahana iibiila uusan oran jirin ayaa Imaaraad u qabtay 4 saac inuu kaga baxo magaalada Muqdisho wadankana kaga guuro Soomaaliya waxaad ogtiin xeradii General Gordon oo ay deganaayeen ciidamadii Imaaraadku xataa in la bililqaystay oo ay bililqaysteen ciidamo daraawiisha ama ciidamada xoog ay bililqaysteen iyo saraakiisha u shaqeynaysa Imaaraadka waxaad ogtiin inuu kala baxay baabuurtii qafuleyd kaliya inuu ka saartay hubku wixii adkaa uu haystay Imaaraad inuu markab kaga rartay waxaad ogtiin inuu hubkii uu xamar ka soo raray u qaybiyay Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo waxaad ogtiin inuu Imaaraadku caadi u soo degay Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo dhaqaalihii uu ku bixin jiray xamarna uu halka keenay taariikhda waxa laga bartaa 12 milyan ee xamar ku bixinaya Imaaraad ayaa hadda u soo wareegay Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo ayaa qaybsanaya min 4 milyan والعك في عن أول واحد قاعدين شرين 3 مليون أو أمنيجوده يحريها عيدا كي يوحى بي فيه هذا عندنا بتلان هان 3 مليون ما يحصل بيش نسينشري عيدا ماذا يوحى شغالها يو مقرنا سبيس كاس بي فوق عليه وعيدا مشاكل موجود يشري ده قال كي على المسكات دور لقري وأنا هذا قمه علينا دولة إماراتكو وصفة عن نوكر بيستاجي هاتنا واحد نص السيادي إنه حسن لبيه 8 مليون وحسن سينشري in markay u yadhahay 4 milyan ilan annaga iyo Kismaayo iyo Berbera noqonayna moogta in markay u yadhahay 4 milyan halka ka soo xarootay Xasan intii aan la rabnay hadda ayuu galay annaga tani waxay noo tahay najax siyaasadeed najax dhaqaale iyo najax cududba Imaaraadku waa dawlad marnaba annaga reer Puntland aan ka kaftanin kama kaftano waa wadnaha iyagu way Imaaraadku meesha doontu looga timaado waa Dubai meeshana la kaga soo raro bariiska waa Dubai baasada waxay u tahay Dubai doontaydu waxay ka timaada Dubai lacagtaydu waxay gashaa Dubai waxa oran karnaa Imaaraad annaga wuxuu nasiiyo ama nagu taakuleeyo waa wuxuu walaaltinimo iyo nagu caymiyo dhaqaalaha u soo xaleen wax nooga cesha marka taas marnaba niyadaada ha gelin in Imaaraad lagu khasbi karo inuu ka baxo Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan baahnayn caruurtiisa iyo naagihiisana Dubai lagu biilin
ayaa ka saari waayay boosaaso berbera iyo kismaayo bal wuxuu ka saaray magaalada muqdisho xasan waxa uu xukumaa magaalada muqdisho waa madaxweynaha gobolka banaadir wuxuu xukumaa magaalada muqdisho 12 milyan intaan ognahay oo miisaaniyad billaha ku jirta Soomaaliya ayaa hadda noo soo wareegtay annaga reer Puntland iyo Somaliland iyo Jubaland taasina waa najax siyaasadeed ama waxa la oran karaa najax dhaqaale oo noo hoosiyaaday marnaba wax ma xumaan xamarna wax saameeyna kuma laha Puntland berbera iyo Kismaayo taa qolkaas haka sameeyay cadayna waxa ay ku filan farmaajihi ka horeeyay midkan ee cayrin jiray qaramada midoobay muxuu ahaa cayrin jiray adiga la ku roon yahay muxuu ahaa safiirkooda cayrin jiray adiga la ku roon yahay reer galbeedka u dhigan jiro dhijay iga baxa wadanka kaasa ka saari waayay imaaraad boosaaso berbera iyo Kismaayo hadda arkayseen Fahad Yaasiin oo nikinaya hadii maanta qadar la saarnaa muxuu dhiiraa asoo haya bilmada Xasan Sheekh soo qornay arkay qadar maanta hadii la saarnaa muxuu dhiiraa Saudi waxa laga qaato iyo intuu qabto qadar inta ay qabato Turki waxa xamar ka qabto intaas ayuu noo qabtaa annaga imaaraadku kama kaftano waa wadnaha yagi way inta soo sheegaya bulshada reer Puntland reer Somaliland waa ogyihiin reer Jubaland waa ogyihiin mana aha wax saameyn ugu yeelanay qodobka agasan ku xiran qodobka la dul istaagay waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu yiri waxaan tagayaa Kismaayo waxaan tagayaa Beesha Laascaano dowladda Somaliland waa diyaar garowday ciidamo aad u tiro badan ayay xuduudaha isku geysay sidoo kale waxa u timid khubaro hadii la ku rooyahay sirdoonka Muusada iyo sidoo kale hore waxa la sugtay khubaro ayana xagga ciidamo cireed ah oo isticmaalaya drone diyaaradahan duuliyaha lahayd ayana sidaan xogahan hayo oo uga timid dowladda la yiraahdo Taiwan iyo Muusad oo Israa'iil Xasan waxa laga soo sheegay Khamiistan imaanaya ayuu xalay habeen hore ku yiri balse hadda markuu waxa maqlay waa baaqday baa soo dhow hadeer oo wuxuu bilaabay arbacada waxaan u socdaa meesha la yiraahdo Sacuudi baan u socdaa sabtida idin imaanaya sabtida markii la gaarana maalin kale uu sii sheegi doonaa oo Xasan mar hadduu maqlay diyaar garow iyo waxba jira wuxuu yiri madaxweynihii labaad oo Laascaano tagay waan noqon karaa laakiin ma laga yaabaa waa la taliyaashiisa markuu wareysanayay madaxweynihii koobaad ee ka soo nabad noqday inaan noqdo taasina su'aal isweydiin mudan weeye xag alle ku xiran tahay balse nafay ninku doona ku waa Somaliland waa diyaar garow aad u adag ciidamo ilaa 20 ku gaaraysa ayay ka horgeysay jiidaha geysay wilise wax dhaqdhaqaaq ma sameyn laakiin sida xogaha naga soo gaaraya waxay sheegtay inay duulimaad qaadayso awood leh Xasanna uu noqonayo madaxweynihii labaad ee Laascaano tagay laakiin uu soo noqonayn madaxweynihii koowaad ee Laascaano ka soo laabtay waa hadal aad xajmigiisu u weyn yahay ayna ka dambayso sida aan isleeyahay isku halayn fara badan waanu aragnaa halka wixii ka soo baxa waana daawanaynaa waana idin soo gudbi doonaa insha Allah waxaan anigu baaqi lahaa Ayuub ahaan dadka walaalaha ee isdhalay ee reer diyaarku SSC iyo reer Somaliland nabad baan ugu baaqi lahaa aniga Ayuuba aad baan idin salaamayaa qubanaanta ku soo koobaya wa salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh maalin wanaagsan